dalkaga 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 laga hela dalkaga 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 laga hela hamun lagu madinte hobantiisad cunta 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 hobantiisad cunta dadkaga hishata ciidada haybsata dadkaga hishata ciidada haybsata haysata haybsata ciidada haysata hamun lagu madinte hobantiisad cunta 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 hobantiisad cunta dadkaga hishata ciidada haybsata dadkaga hishata ciidada haybsata haysata haybsata ciidada haysata nabaday daawadayaal dhammaan meel kasta oo aad nagala socotaan halkani waa telefishanka codka bariga Afrika waxaananu halkani idinku soo gudbin doonaa barnaamij gaar ah oo aan ku eegi doono wax soo saarka shinnida iyo sida ay malabka u samayso daawade waxaad maqashaa inta badan shinni ayaa malab samaysa amaba dadku intooda badan waxay aad u jecel yihiin inay cunaan malabka shinnida haddaba su'aasha isweydiinta leh ayaa ah sidee ayay shinnidu malabka u samaysaa maxayse ka samaysaa shinnidu waa ay kala duwan tahay haddaba teebaa samaysa malabka keebaase aan samaynin malab waxaan ku eegi doonaa oo aad kaga bogan doontaan dhammaantiin barnaamij telefishanka codka bariga Afrika ka diyaariyey shinnida iyo sida ay malabka u samayso isla markaana aanu ugu kuurgalnay si aan wax uga ogaano shinnida iyo sida ay malabka u samayso sidaad arkaysaan halkani waa beer ka mid ah beeraha magaalada Gabiley lagu dhaqo shinnida ama wax soo saarka shinnida si fudud ayaa looga faa'iideysan karaa shinnida malabkeeda haddii la ilaaliyo laakiin dad badan oo jecel malabkeeda ayaa aaminsan in ay halis tahay shinnidu dhaqashada shinnidu waa wax inta badan naadir iyo dhif ku ah dhulka Soomaalidu degto balse waxa muddooyinkii ugu dambeeyay gobolka Gabiley ku soo badanaya beeraha lagu dhaqo shinnida taasi oo looga faa'iideysanayo wax soo saarka malabka shinnida haddaba shinnidu sidee ayay malabka u samaysaa telefishanka codka bariga Afrika ayaa jimcaha 17ka July booqday meelaha ugu weyn wax soo saarka shinnida kaasi oo ku yaala darifka bari ee magaalada Gabiley waxaana halkaasi aanu kula kulannay حسن محمد عبد الله oo ah mulkiilaha aasaasay mashruucan shinnida ee ugu weyn gobolka Gabiley isla markaana aad ugu xeel dheer cilmiga shinnida iyo wax soo saarkeeda waxaana uu xasan nooga warbixiyay noocyada shinnida iyo sida ay waliba malabka u samayso shinnidu sideebay u samaysaa malabka maxay ka samaysaa marxalada intee leeg ayuu maraa waqtigee ayuu samaysmaa way dad badan oo Soomaaliya ayaa inay ka faa'iideystaan laga yaabaa muuqaalkaagan oo ay aqoonta shinnida ay u yeeshaan walaarintaasi ayaa bismillaahir rahmaanir rahiim aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa TV-ga codka bariga Afrika ma sha Allah waa TV u heelan inuu bulshadiisa u shaqeeyo ma sha Allah bulshada afka Soomaaliga ku hadasha dhamaantood inuu u shaqeeyo u adeego waa TV aan aad ugu mahad celinayo qaybta oo barnaamijyada sida fiican u soo daayo magacaygana waxa la yiraahdaa Xasan Maxamed Cabdilaahi Buux iskaashatadana waxa la yiraahdaa iskaashatada Shinnimaal oo shinnida ayaanu maalaa anagu marka imika hadda waxaan gacanta ku hayaay maaha wax ciyaar waa malabkii ay soo saartay shinnidu inta aan kor u hayaay maanta waa qiyaas ahaan waa $25 haddii aan $10 siiyo haddii kalena waxay noqonaysaa $45 oo lacaga qaabka ay u samaysaa shinnidu horta waa qaabka ugu casrisani waa qaabka aad arkayso maanta ma sha Allah alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaahay baana nagu guuleeyay waxaan seelahay bulshada afka Soomaaliga ku hadasha dhamaantood gaar ahaan ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku noolahay waxaan leeyahay ha fadhiisanina ee ka shaqeysta shinnidu waxay ka fiican tahay oo ay ka wanaagsan tahay geela
looda iyo adhiga waayo iyadu ihoo kuma le ifoofi kuma le waxaan ku idhi waa inaad dar yeesho oo keliya ayay kaaga baahan tahay haddana waa business baananka adduunka oo dhani way ku aaminayaan lacag iyo wax kasta waa lagu amaahin karaa laakiin haddaad geel leedahay baanku kuma amaahin karo lacag sababtoo ah anugu waan taan fahmi waaye laakiin baananku aad bay u dhiirigeliyaan iyo hay-adaha caalamigiiba waxaasina wax kale maaha iyada iyo digaaggu way ka dhaqsa badan yihiin wax soo saarkoodu uu ka dhaqsa badan yahay geela iyo adhiga iyo looda waxa kale oo yarta iyadu ay soo saartaa waxa ka mid ah malabkan iminka hadda aan hayno kow waxa kale oo ka mid ah malab la yidhahdo royal jili oo isna waxaan ku wadi malabka cunta boqoradeedka loo yaqaano mid aad u kordhiya way soo saartaa waxa kale ay soo saartaa baa la yidhahdo Poland ama sayna waxaan naqaanaa habaas baynu naqaanaa waa baalka ubaxa ay ka soo gurto kaasi laftiisuna dawooyin baa laga sameeyaa waana la isku daweeyaa waxa kale oo ay soo saartaa baa la yidhahdo propolis oo isna madow oo isagu ka halka ku dul samaysan waa gaar wuxuu celiyaa bakteeriyada ayuu la dagaalamaa iminka tusaale ahaan malabkaasi wuxuu yeelan lahaa bakteeriya laakiin se maxaa ka celiyay oo ka difaacaya bakteeriyadii waxa ka difaacaysa baasha yar ay ku samaysay shinidu oo waxa la yiraahdaa propolis afka qalaad nagu laakiin waa xanjadii celinaysay macnaha bakteeriyada af Soomaali ahaan shinidu laakiin waa saddexda qaybood ay ka kooban tahay mid waxa la yiraahdaa qadle oo waa ka boqorada rimiya waxa uu loo kala ma qabto xabadaas oo kaliya waxay ka shaqeysaa xabadaas qaybta bacaatrimiska waxa kale oo jira boqorad baa jirta ama se kuweyn boqoradaasi iyadu waxay ka shaqeysaa dhasha iyo urta ay shinidu isku garato waxa ugu badan shinida oo laakiin shaqada ugu badan qabta waa shaaqeeduhu waa qaybtan kol la dagaalanta kol malabka samaysa kol saxaarada nadiifisa taasi waa ta ugu badan laakiin cimrigeedu ma dheera 40 cisho ilaa 20 cisho ayay noolaataa boqoradu se waxay jirtaa sanadkeedu wuxuu jiraa ilaa 7 sano ilaa 6 sano ilaa 5 sano inta u dhaxaysa way gaadhaa iyadu laakiin 2 sano ayaad iskaga bedeli kartaa waayo malabka aadka u badan kuma soo saarayso haday 2 sano dhaafto waayo way gabowdaa oo da'deeda isbedelaysa moogta waxa kale oo jira xanjadan inay dhirta ka keento hamoodin daboolka yar ee dusha sare ama dhirta ka keenta laakiin waqaskan kale dhasha dhalata ayaa samayso oo ka keenta qanjidhadeeda waa awood uu Ilaahay siiyo rabbaaniya marka shini waliba shinida ay ka dhasha badan tahay ayay ka wax soo saar badan tahay shinida ka badan tahay ayay ka wax soo saar badan tahay waqtiyada ay shinidu malabka samaysaa ee ay dadku munaafacadsan bal waqtiyadaas bismillah horta anigu waxaan ku soo dhex jiray muddo 23 sanadooda ayaan shinida ka shaqaynayay 23 ka sanadood daraasad baan sameeyay daraasada aan sameeyay waxaan ku ogaaday waqti bay shinidu malab samaysaa waqtigaasi oo ah bisha 6aad waa dhulkeena waa bisha 6aad ilaa bisha 7aad ee hadda ku jirno ilaa bisha 8aad wixii ka dambeeya haday kula dhaafto shinida waad u deynaysaa waxba kama saaraysid waayo waxa dambaysa abaar daran oo waxaan ku dhulkeena ka dhacda waayo wabiye malihin dhul biyuhu aad ay u durduraan oo bustaan iyo aad u badan oo barwaaqooyina marka iyadu waxay ka heshaa mar walba deegaanku siduu barwaaqada u yahay wiigi inaad 2 jeer ama adigu 10 cishaba inaad 2 jeer ka shubataa waa wax dhici kara hadduu dhulku barwaaqo yahay laakiin se adigu bishii 3 jeer waad ka shuban kartaa 3 bilood maanta ma sha Allah tanaynu ka soo shubnay waana arki doonaa malabkan waa adiga arkay miisaankiisa iyo culayskiisa xabadaasi waxa weeyaan 2 kiilo iyo badh waxay noqonaysaa haddii aan imika waa 200 iyo 50 oo shilinka Soomaaliland waxa weeyaan haddii aan rimaalo waxa laga yaabaa inay caaniyogu inta ay gaadheen ama saacadkeeduba haddii xitaa laga iibsado 300,000 ma dhaafaysa ama 400,000 laakiin shinidiina way joogtaa malabkiina waan kala baxay oo waxa soo dhamaan kala baxay adu 35 kiilo maanta uu noqonaysa xabadaasi 35 kiilo in maanta kala baxay rima soo saari karto hal ma soo saari karto ayaan waxaan ku khayaali ku sheekaysan waa wax dhaba waxaanu idin kala hadlaynaa ma aha wax khayaali oo boomboonina ma aha waa waxa bisilaynu gacanta ku haysano aad iyo aadna dhalinyarada waan u dhiirigelinayaa waxaan leeyahay dhalinyarada ka faa'iideysta dhulkeena nimca fadhida dhinaca kale mulkiilaha mashruucani Xasan Maxamed Cabdilaahi ayaa sidoo kale sharaxay habka shinida malabka looga saaro iyo marka uu bislaado qalab lagu eego waxaana uu sheegay in ay shinidu tahay mid aad u fudud dhaqashadeedu haddii la barto malabkan imika 100% waa buyuur weeyaan ee uu buuxisay macnaha haday saa u dhimantahay kale malabku maaha inuu buuxo laakiin markay saasoo kale uu dahaadho buuxa waxaan ku eegi doonaa insha Allah ta'ala inuu malabkan yahay malabkii oo bislaaday iyo in kale waxaan ku eegi doonaa bismillah
mishiin iska yar waa mishiin yar oo loogu talagalay malabka marka waynu eegi doonaa insha Allah iska yar qiijinana bismillaahi raxmaani raxiim marka halkan yar baan saa ugu eegayaa marka malabka waxa halkaas lagu tiixinayaa sama ugu tiixisay bismillaah ku laabaya ku laabay aan eeganayaa daba waa leebkii malabka lagu eegayay inuu buuxiyeen kale leegana ma sha Allah imika waa dhag si fiican buu buuxinayaa ma sha Allah boqolkiiba boqol malabku waa nadiif سمعت ما شاء الله بقول كيف بقول قلب كاسمان هو بوحة ما شاء الله ومدة وحن لها أفك الصومالي وكو هذا الشيء كارهان بني رضا ممكن نمع فقدا هكبا قنينا الشيء ذي وديك أركي مانتا ونحجونا ما شاء الله هل كان بسم الله مركاسين مكتب حدد وانك قرن دونا ما شاء الله تاش ندينا شندي دي شوف توتا كا قبا كنت قبا ما شاء الله يا لك سويت حاجه مرت دبولكاسي waa daboolka kaliya loo baahan yahay moogta ما شاء الله غير بيجي marka sidan oo kale shinida ugu gurto ee imika aad ka saarto qaybtii boqorka halkiibay ku jirta ما شاء الله horta waa su'aal aad u wanaagsan wariyaha sharafta la aad baan u soo dhaweynayaa waxa ku jirta qaybta hoose lagama taabanayo waa qaybtii ay ku jirtay dhasha iyo boqorada waana cuntadeedii laakiin anigu imika waxaan kala baxayaa qaybtaydii sare waan kala qaybiyay marka horeba waan kala qaybsanay marka ilaahay waa ku rabeeyay in qaybna ku samayso dhasha iyo malab waxay cunayso iyo boqorka qaybna ay munaafacaadkii kale ee malab ما شاء الله horta kolka hore iyadu waxay ugu tala gashay inay mar walba iyadu ay cunto waxan haba saahatay laakiin anaga kala qaybinay waxaan u dhignay isku dhirka kaaseen boqoradu soo maray naasa cidinaya boqorada marka kadib dushan waxay ku dhigaysaa malab nadiif ah hoostiina waxay ku dhigaysaa dhashii iyo wixii kale ku shaqeynay laakiin shinidii shaqaali way soo maraysaa shabakada loo dhaxaysiin saas weey ma sha Allah aad hadiyahan qasnad kasta malabka laga saaray intuu leeyahay والله ما أنت أكله ملبكنا هلكن كلا بحنا وحنا نقون دونا إن شاء الله تعالى 25 كيلو أو ملبا أيون نقون يا ما أنت ما يرى ملبكنا كنا كسرنا أيو 25 كيلو كما يرانا يو هدوك بتمو يعني وهي ميزان هان حبدني وحلا قلت لك على إني لبيه برد نقطة حبدا قريين مخصوص صار ياي إني لبيه كيلو يبرد أي نقطة لو قلت لك ما شاء الله الحمد لله سود هذه هي ما شاء الله وحنا كسر دونا باشا هذا الخالق ما شاء الله ساسرنا يا وكا سو ملك وداتو نسوي ساريا ما شاء الله ملك هو ملك كانوا كسو ساريني شنيدا ملك هو ملك كان شنيدا كلا soo baxnay marka ay magasaasaan uga saaraya ma sha Allah halkaas imika u dhantahay halka kadib mishiigu ma kaga shubi doona insha Allah dhinacan hadana ayuu ruganayaa ma sha Allah hagana waan dul marinayaa way dabool khayr ay ku dabooshay waa si inaan uga daadan ay malabka ugu dabooshay kadib markaan saa uga qaado waxaan dhex dhigi doonaa mishiinkan ayaan kaga shubi doonaa markaa mishiin maaha laakiin waa baaldi loogu talagalay inuu malabka ka shubo kuwa iyada oo sideeda u samaysan ayaa loogu celinayaa ma sha Allah wax dhaawaca looma geysanayo marka hadda waxaan dhigi doonaa gudahan ayaan dhigayaa arkaya xabadaan soo qabanaya adiga arkaya ma sha Allah
الحمد لله رب العالمين الشكر لله إلهي بين نقوم هذا علمنا كما كان لقى هرجينا يا كنت محل سمين دونا بسم الله محل سمين دونا وانك شوية هذا وبدا سو كليا الفورتك شوية تجربة القادمة وكعب أنا نسيم ونمعدي ممكن نمع فردة ملاب كانوا حمد برشاد ما شاء الله حتى الضباب كأيه كتشيدة يا ما شاء الله وأنا قاعد الضباب كتشيدة أوكا ملاب كي باقي أنكشف لنا أوكا سوى فارقة باقي أنكشف لنا مقاطع وفضيت وأي واحد نكشف لنا إنه ملاب كي هذا كتشيدة لكن واحد نكشف لنا ولك ما شاء الله يا ونمعه intaas waa qardhaas keliya mise waa imika laba mid baynu ka shubnay laakiin malabka halkan inoogu jiraa 4 kiilo ilaa 5 kiilo buu noqonayaa ma sha Allah waa laba halo keliya ka shubay laba macnaa laba awlaal intii kale oo halkan dalkaaga dalkaaga laga helaa dalkaaga dalkaaga laga helaa hamun laguma dhintee hoobantiisad hoobantiisad cuntaa dadkaagaad hiishataa ciiddaadaad haybsataa dadkaagaad hiishataa ciiddaadaad haybsataa ciiddaada haysataa daawadayaal intaasi waxaanu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkaasi aanu ku eeganay wax soo saarka shinnida oo idinkaga imanayay magaalada Gabiley ee xarunta gobolka Gabiley waxaana barnaamijkani idin soo diyaariyay anigoo ah Sikriye Nuux Ibraahim inta aan ku kulmi doono barnaamijkan iyo barnaamij lamid ah waa bahweynta codka bariga Afrika oo idin leh nabaday amaanaalla hoobantiisad cuntaa dadkaagaad hiishataa ciiddaadaad haybsataa dadkaagaad hiishataa ciiddaadaad haybsataa haysataa